Bismillahi Raxmaani Raxiim. Maantay waxaan ka hadlaynaa topic muhiim ah oo aan ka hadlaho postpartum hemorrhage. Markaan soo bilaabno obsiga waxaan u kala qaybinay waxaan dhahnay bleeding during the pregnancy waxaan dhahnay inuu yahay saddex qaybood. Qaybta waxaan kusoo sharxnay waxaan dhahnay early bleeding during the pregnancy oo ah abortionkii, ectopic pregnancy, molar pregnancy. Kadibna waxaan dhahnay late bleeding of during the pregnancy oo loo yaqaan dhahnay antepartum hemorrhage ABH. oo waxaan ugu muhiimsan soo hadalnay placenta brief iyo appropriation ka soo hadalnay. maanta waxaan galaynaa waxa loo yaqaano postpartum hemorrhage ayaan ka hadli doonaa. Topiga waxyaaba uu ka kooban yahay ama contentska uu nooga kooban yahay aan ka hadli rabno postpartum hemorrhage ko inaan fahno definition-keeda. What is the postpartum hemorrhage? Definition-keedu muxuu yahay inaad fahmi karto. Haddii lagu weydiiyo waxaa la rabaa inaad soo tufto aadan ka fekerin ma fahanta. Haddii lagu weydiiyo typeska ayna sidoo kale inaad garan karto what is the types of postpartum hemorrhage waa inaad hore ka fahmi kartaa, and what is the etiology and what is the risk factors ina fahmi karto maxaa sababa inuu dhaco postpartum hemorrhage si hadhow looga hortago. haddaan karto aniga etiology iyo risk factorski waxa ii fududaanaya ka hortagga iyo prevention-keeda. kadibna waxaan imaan waxa loo yaqaano clinical featureski oo ah yacni history and examination sama yacni historyga muxuu yahay qofka bukaanka oo la imaanaya ku garanaya inay tahay postpartum hemorrhage, iyo examination u sameynaya muxuu yahay saan u garto inuu yahay postpartum hemorrhage iyo wixii sababay. kadibna waxaan gelinaa waxa loo yaqaan investigation waxay tahay baaritaan u diraayo marka ay hooyadan tahay postpartum hemorrhage. kadibna waxaan ka hadlaynaa waxa loo yaqaano prevention yani qaabkee looga hortagi karaa postpartum hemorrhage-ka. kadibna waxaan gudbi doonaa managementiga oo noqon doona laba qaybood. qayb ah resuscitation oo ah in hooyadii mataqaana xaaladii ku jirta laga baxsho oo ah oo loo sameeyo first aid waxa loo yaqaano ama resuscitation. kadib in la daaweeyo definitive management oo la daaweeyo yani mataqaana etiology-ga sababta in la daaweeyo waxa loo yaqaano definitive management. management oo laba noqon doona hadhow aan gaari doona waxaan kordhicina ashki biri aan hadli doonaa. iyo complications maxay tahay of postpartum hemorrhage yani complication malada postpartum hemorrhage haddii leedana maxay tahay complicationskeeda si aan markaan uga hortagi karnaa. haddaan ku bilaabno hadii lagu what is the definition of postpartum hemorrhage waxaa leedahay yani definition of postpartum hemorrhage inuu yahay kow waana ereygan keenta ah blood loss yani ereyga inuu jiro blood loss ka badan 500 oo milli la socdo oo ka imaanayo from genital tract. halaas ugu muhiimsan kow inaan sheegto inuu yahay blood loss kaasoo ka imaanayo genital tract-ga lana soconayo hadduu 500 ka badan yahay kan vaginal delivery-ga ama uu ka badan yahay 1,000 milli after cesarean section ma fahanti yani after cesarean section uu 1,000 ka badan yahay ama after vaginal delivery uu ka badan yahay 500 waxaan leenahay this waa postpartum hemorrhage waa bleeding from the genital tract ka imaanayo ama pert canal-ka ka imaanayo after vaginal delivery uu 500 ka badan yahay hadduu cesarean section uu ka badan yahay 1,000 badanaa waa adagtahay inaan inta qabto xisaabi aan dhaho bleeding ka imaanayo hooyadan see u xisaabina is difficult qofkii sariirta ku jiifa dharkeedii wixii laakiin wax qiyaas inaad qiyaasi karto adii kartis waa postpartum hemorrhage waa yahay waxa xadidina nambarada waxaan xadidina maxaa yeelay waxa waaye during the puerperium normalka waxa imaan karo vaginal bleeding wala nooc minimal ah so marka vaginal bleeding madoo ay hooyo kasto after vaginal delivery ama after cesarean section hadduu ka imaado vaginal bleeding not means postpartum hemorrhage waa inuu yahay kimiyo badan oo after vaginal delivery 500 ka badan yahay ama haddii uu 1,000 ka badan yahay after cesarean section ma fahantay يعني not only any bleeding كي إيمانه after cesarean section after vaginal delivery إنه هي postpartum hemorrhage ولا صار سلام. أما sometimes هذو سامي general condition of the patient general condition كسو سامينها general condition كسو سامينها ما تقارنا إنه هذا shock شو سما إنه علامة shock لو أركو إنه هذا ما تقارنا أي way سيديك بدنا كبح. مركب عنا definition إنه ساسي وفوزي هاي bleeding from the genital tract يعني more than 500 أو ملي سما more than 500 أو ملي after vaginal delivery ama more than 1,000 milli after cesarean section ila socota waxaan marka postpartum hemorrhage ka waxa loo qaybin doon kara inaan dhahno waxa waa minor inaan dhahno minor postpartum hemorrhage hadii oo blood loss ka u dhaxeeyo 500 ilaa kun waxaan leenahay waa minor postpartum hemorrhage. major garaalina major postpartum hemorrhage haduu ka badan yahay kun waxaan leenahay waa major postpartum hemorrhage. the major postpartum hemorrhage ka waxa loo qaybin doona labo inaan dhahno moderate blood loss u dhaxay 1,000 ilaa 2,000 massive noqon inuu 2,000 ka badan yahay yani waxaan u qaybi karaa dhahno minor iyo major. minor waxa u dhaxayaan dhahnay yani ama uu mataqaana master 500 ilaa 1,000 u dhaxayaan waa minor. major waxa leena intuu ka badan yahay mataqaana 1,000 ka badan yahay waa major. asa waxaan si kala qaybinayna moderate iyo massive hadduu 2,000 ka badan yahay waa massive hadduu 1,000 ilaa 2,000 dhaxayna waxa leena waa moderate. marka dis waxaan leeyahay waa definition aad badan iska jiro yani markii kitaab badan u laabato ama text book badan mid walba waxa ku qoraysa definition ku arkaysa marka waxba isku wareerin muhiimad inaad dhahdo hadaad definition aad sheegto lagu saxay imtixaanka ama dhakhtarka weydiiyo aad dhahdo yani bleeding from the genital tract
after vagina delivery oo 500 ka badan yahay ama oo ka badan yahay 1000 after cesarean section waxba dhiba ma lahan labadaba waa lagu socodsiinaa. haddii lagu weydiiyo doctor lagu dhaho what is the types of postpartum hemorrhage waxaa leedahay primary postpartum hemorrhage and secondary postpartum hemorrhage. waa soo tufe inaan fikirta lama rabo yani cashiro waxaa jira obstetric markii ku jira oo emergency ah oo markii ereyga laga weydiiyo definitionkeeda typeska markii lagu weydiiyo waxaa la rabaa soo tufta sidii faatixadii oo xifdsantaa laga rabaa. waa top maxaa yeelay waa top emergency waa emergency ugu muhiimsan ama top of emergency markii la obstetric post mataqaan obstetric gynecology. markii dib weydiiyo what is the types waxaa la rabaa inaan fikirta lama rabo waxaa leedahay primary and postpartum. Primary postpartum waxay ku duwan yihiin primary postpartum waxay ku dejiyin bleeding occur during the third stage yani waxa way kaloodu waxay ka sameeyeen yani waxaan horta postpartum hemorrhage goor dhaca wuxuu dhacaan dhahnay after second stage maxaa ka wada markuu cunug soo bax kadib yani first stage waxaan dhahnay waa cunug markii hooyada ay bilowdo labor painka ilaa noqon full dilatation waa first. second stage waa stage ku cunug soo baxay marka waxaan after second stage yani cunug markuu soo bax kadib dhiig ma waxa loo yaqaan postpartum hemorrhage yani after second stage mila socda yani after second stage kii hore muxuu ahaa antepartum waxaan wuxuu u dhaxeeyay dhahnay mataqaana yani hooyada waxaan dhahnay before second stage yani second stage ka hor cunug soo bixin marka cunug soo baxaan leenahay waa postpartum hemorrhage. marka waxaan leenahay iska soo gaab waxaa primary postpartum waxaa leedahay waa definition dib u laaban waxaa leedahay waa bleeding from kii imaanaya genital haddii lagu wada primary waxaa leedahay waa bleeding from the genital tract ama birth canal after delivery nado ka badan 500 milli kaas waxaa leedahay dhacayo first 24 hour meesha eraygaas muhiim markay dhacdo first ama within 24 hour 24 ka ugu horeeyo oo hooyada markay dhashlaad 4 saac ugu horeeyo dhac waxaa loo yaqaan primary postpartum hemorrhage. secondary maxaa waa isla definition kii waa laakiin waxay ku duwan yihiin after 24 saac kadib yani hooyada markay gurigeeda inta aado maalinta saddexaad ama maalinta afraad u dhiig ka imaado waxaa leenahay waa secondary postpartum. laakiin maanta dhasho 2 saac kadib hadii inta guriga tagto 4 saac kadib ayadoo dhiig bixeeda gurigii la soo isbitaalka la keeno waxaa la primary postpartum hemorrhage. doctor markaas ku qaldin what is the primary and what is the secondary inaa fahmi karto farqiga u dhexeeya maxaa waay primary waa 24 saac ugu horeeyo kana waxaa leenahay waa after 24 hour-ka ilaa 6 saac ilaa 6 isbuuc 6 week of postpartum hemorrhage ilaa 6 week of postpartum hemorrhage la socota doctor ama puerperium waa 6 isbuuc puerperium ku jirto ani dhiig ma waxa loo yaqaanaa secondary postpartum hemorrhage. 24 saac ugu horeeyo waxaa loo yaqaanaa primary postpartum. dil weydiiyo doctor waxaa laga rabaa in hore ka fahanto in hore ka soo tufta laga rabaa what is the primary postpartum hemorrhage waxaa leedahay waa bleeding from the genital tract sama imaanayaan within 24 hour 24 saac ugu horeeyo after second stage kadib 24 saac ugu horeeyo markii hooyada dhasho 24 saac ugu horeeyo dhiig waxa loo yaqaanaa primary postpartum hemorrhage. waxa uu dhigi karaa yaa ugu khatarsan hadii labada yaa serious waxa serious primary postpartum hemorrhage ayaa serious ah oo imaanaya 24 saac ugu horeeyo yani saacad kadib 2 saac kadib 3 saac soo cali doctor bukaankii dhashay saacad ka hor ayaa dhiig bixayso is waxa primary postpartum hemorrhage. hadii lagu dhaho hooyada gurigeeda iska aaday meelaas iska maalmo 3 maalin ka hor dhashay ayaa waxa u yimid dhiig baxa ku yimid dis waxa leedahay secondary postpartum hemorrhage. yaa khatarsan labadooda primary ayaa khatarsan yaa common ah primary wax dhib badan yaa common ah the most common yaa badan most common waxa primary yaa ugu khatarsan oo serious ah primary yaa ugu badan primary. marka waxa lagu dhihi karaa etiology ma leeyahay what is the etiology of postpartum hemorrhage waxa leedahay etoniumka waxa loo soo gaabiyaa 4T sama yani waxa la dhahaa waa 4T maxaa laga wadaa tiida hore oo tun ah trauma tissue and thrombin afartaas tiya la soo gaabiyaa laakiin waxa lagu wadaa inaad ku xifdiso laakiin sida saxda ah mid ko number 2 waxaan leenahay uterine atony maxaa la wadaa uterus ayaa wuxuu noqonayaa relax uterus waxa la rabaa inuu cunuga ka soo baxo after second stage inuu sameeyo good contraction marka waxaan leenahay those contraction sameynin waxaan leenahay this is waxaan leenahay waa relax uterine atony tun maxaa waaye waa tun mataqaana waa masalka marka tunkooda xoogooda sama contraction yihiin atony maxaa means waxa waaye contraction ma jiro yani uterine atony adada yani waxa leenahay number 2 uterine atony sama uterine atony mina socota number 2 hay number 2 waxa leenahay tissue ma dhax macallin marka waa si sharax waxa leedahay retained tissue yani waxa qayb kamid ah ma soo bixin retained tissue maxaa waaye yani ama qayb kamid ah balasantada iyo ama membrane-kii sama mid soo bixin balasantada ama membrane-kii inuu mid kamid ah oo soo bixin waxaa leenahay waa second that's why markii after cunuga uu soo baxay second stage uu soo baxay kadib waxaa lagu dadaalaa in la hubiyo in complete uu soo baxdo asad in kale waxaa balaastada iyo soo bixi weyso waxay keenaysaa postpartum hemorrhage waxa loo yaqaan retained tissue ama retained tissue maxaa waa balaasantadii ama membrane-kii. number 3 waxaan leenahay trauma any trauma oo dhacdo during the delivery trauma dhici karto cunuga inuu meesha dhaawac soo gaarsiiyo maxaa kamid ah yani kasoo bilow uteruskii cervixkii vaginahi perineumkii intaas oo dhan wax soo gaarsiiyo perineum hoos ka bilow perineumkii
cervicalki sama perineumki vagina ku jiro sama cervicalki uteruski ani trauma ama ani injury waxa leedahay soo sharaxay email trauma kaliya dhahdo waa qalad hada imtixaanka aan ku weydiiyo atraf trauma kaliya tara waxaan ka saar qalad waa inaan sharaxdaa trauma waxaan kugu sheegay ku fududay laakiin trauma inta ka dhacaysa ana sheegtaa yani waxa leedahay trauma ama injury ama tear ama laceration inuu ka dhaco waa sharax waxa leedahay vaginaha cervixka perineumki hoose ilaa uteruska ani trauma gaar ama injury ama laceration wuxuu keenaa waxa loo yaqaan primary postpartum hemorrhage. Number 4 thrombin afar fiyan rabeen ku xifdimo waxa la coagulopathy maxaa coagulation problem ka jira yaa ugu caansan kale in hooyada noqoto DIC disseminated intravascular coagulation yani in hooyada ay mataqaana coagulation inuu problem ka jiro dhiig inuu xinjiray sameysmaynin ba dhiig ay xinjiraha sameysmay waxa lagu yaqaan coagulopathy hadii uu weydiiyo etiology ina meelaha fiirfiirsa camera midig fiir bidix fiir ina madaxa xooga talaga maro waa ina soo tuftaa 4T adhe laakiin waana sii sharaxdaa markuu waxa leedahay uterine atony waxa leedahay uteruska ayaa relax ah not well contracted waxa la rabaa hooyada cunuga soo wax kadib inuu noqdo uteruska well contracted inuu well contracted inuu isku dhigal raba oo contraction sameeyo haduu soo waxa leenahay this waa uterine atony haduu sameeyo waxa dhacay postpartum hemorrhage that's what drugs la siiya oo ah sameeyo uterine yani mataqaana tunka ama uterine contraction ka xoojinayo oo loo yaqaan uterotonic drugs ka soo number 2 waxa leedahay tissue waa sharax waxa leedahay retained tissue any tissue placentadi completely ama partial of placenta ama membrane mid kamid ah waxa loo yaqaan retained tissue number 3 waxa leedahay trauma yani waxa leedahay trauma ama laceration ama waxa leedahay tear ama waxa leedahay injury from waxa leedahay perineumki hoos perineumki vaginahi soo cervixki uterus waxa leedahay injury gaar waxa leedahay wuxuu keeni karaa leedahay yani wuxuu keeni karaa leedahay mataqaana postpartum hemorrhage number 4 waxa leedahay coagulopathy marka waxa leedahay 40 tun trauma tissue and thrombin and sometimes uterine inversion maxaa inuu uteruska uu daba gadoomo uterine inversion laha wax badan hadda xoog ma saarayno ayadana waxay keeni kartaa postpartum hemorrhage waxa la weydiin karaa ma jira predisposing factor yani ereyga predisposing factor maxaa waa yani wax keeni karo taas waxay ahayd muuto waa etiology afartaas doctor isku qadina etiology iyo predisposing factors waxa leenahay waa predisposing factors waa laakiin way sababi karaan way keeni karaan hay number 2 instrumental yani intrapartum mid lagu jiro inta hooyada markay intrapartum ku jirto ee labor ka joogto ayay sababi kartaa marka waxa leenahay tan waxa leenahay waa kuwa intrapartum maxaa ka wadnaa waa predisposing factor ka qayb laba qaybood midna intay hooyada uurka soo wado midna markay labor ku jirto ila socda doctor marka waxaan ku bilaabaynaa markay hooyada labor ka joogto intrapartum risk maxaa ugu muhiimsan waxa uu yimid number 2 in hadii hooyada loo isticmaalo instrumental vaginal delivery yani hooyada waxa lagu soo baxshay biro tira forceps ama ventouse ama waxa uu sameeyay episiotomy ama taqaana si xoog ama episiotomy weyn la sameeyay si fiican looma tulin waxa leenahay ay instrumental ama erag marka ay shaano kala episiotomy naga bixi erag waxa leenahay instrumental yani wax kasto loo isticmaalo instrumental maxaa episiotomy waxa uu soo gelnay maqas laakiin waxa lagu jaraa soo meesha episiotomy marka waxa leenahay instrumental vaginal delivery forceps iyo ventouse waxay keeni karaan trauma keenayaan trauma maxay keenaysaa dhahnay waa etiology sabab ah aan ahaanay postpartum ifan doctor yani forceps iyo ventouse waxay keeni karaan wax la dhahayo trauma waxaan ahaanay waa 44 mid kamid soo maahay 40T ay kamid ahayd oo ah trauma ay ka ama laceration ama injury keenaysa marka waxa leenahay waa risk factor ada isticmaal instrumentalka waxay risk u tahay inay dhaawac gaarsiiso ay keento tear ama trauma ama injury perineumki and cervixki mina soo doctor marka waxa leenahay risk factor waxa leenahay instrumental vaginal delivery forceps prolonged labor ka waqti dheer qaatay wuxuu keeni karaa uteruska inuu mataqaana uu tacbaan noqdo oo hadhow uu sameeyo uterine atony uu keeni karaa rapid labor wuxuu keeni karaa trauma soo laborka si boobis soo baxba induction hooyada waa la fooliyay iyo augmentation aydan waxaan leenahay waxay keeni kartaa hadhow aydan mataqaana inuu dhaco uterine atony chorioamnitis infection ku dhacayo leenahay chorionki ama mataqaana ku dhacayo placentada iyo soo galay chorioamnitiski iyo fetus ku dhacayo shoulder dystocia sama hadii hooyada waa risk factor waxay keeni kartaa trauma keeni kartaa sama shoulder dystocia internal bundle version yani coagulopathy wax walba coagulation ka ayadana dib u keeni kartaa soo waxa kamid ah hooyada qabto foreign Wilbrand disease qabto kale hemophilia ama qabto coagulation problem bataqaan acquired maxaa waa acquired coagulation sida hooyada waa DNC disseminated intravascular coagulation ama waa HELLP syndrome waxaan ku sheegnay waxaan ahnay high blood pressure kisama preeclampsia waxay keeni kartaa in HELLP syndrome maxaa waay blood lead hoos u dhacay sama waxay keeni markaa dhow inuu dhiig mataqaana uu sameeyo waa ayadana wuxuu keeni karaa coagulation problem oo dhaco meel socod doctor marka dib badan la ismu weydiyo laakiin dib weydinaan kara karto risk factors laakiin yaa muhiim ah 44 aan dhahaynay waa tana 44 aan dhahaynay 44 aan dhahaynay uterine 44 aan dhahaynay tun trauma
and tissue and thrombin soma au muhiimsana waa etiology kuwana maxaa waa risk factors طبعا waa risk factor intuu ugu jiro intrapartumka sidoo waxaan leenahay waxaa jira bridging factorki lagu guda jiro waxaan leenahay inta lagu guda jiro antepartum maxaa kamid ah hadii hore qabtaan previous postpartum hemorrhage hore qabtay ama hadda waxa loo sameeyay manual remove of placenta ama waxa la sameeyay waxa loo yaqaano abruptio placentae soma waxa la sameeyay waxa loo yaqaan leenahay abruptio placentae hooda qabta abruptio placentae maxay keenaysaa abruptio placentae waxay keenaysaa ama placenta previa waxa la isku dhahaa antepartum hemorrhage waxaan leenahay yani waxay keeni kartaa yani antepartum hemorrhage waa waxyaabaha keena leenahay antepartum hemorrhage waxyaabaha keena leenahay postpartum hemorrhage fetal demise maxaa waaye IUFD cunuga dhintaba cunuga markuu dhinto oo IUFD noqdo waxaan leenahay waxay keenaysaa ayadana coagulationki inuu problem ka dhaco sidoo waxaan leenahay ayadana gestational hypertension waxay keenaysaa ayadana waxaan leenahay waxay keenaysaa Helby syndrome marka this is the most risky factors ama the predisposing factors waxaan waxa muhiimsan ah inta lagu jiyo antepartumka the most common waxaan leenahay waa haddii qabto previous postpartum hemorrhage ama remove of the placenta lagu soo baxshay ama abruptio placentae and placenta previa and fetal demise oo IUFD wuxuu keeni karaa in hooyada coagulation problem dhaco oo 4TD mid kamid ah keeni soma iyo haddii hooyada overdistension of uterus sida multiple pregnancy polyhydramnios big baby ama loo yaqaan sizable baby waxaan leenahay this all a risk factor of waxaan leenahay predisposing factor of postpartum hemorrhage laakiin ma ahan etiology laakiin this is risk factor difference u dhaxeeya risk factor and etiology waxaan waa 4T laakiin predisposing factor waxaan oo dhan waa risk factor wax keeni kara hooyada qabto hore previous postpartum hemorrhage ama haddii placenta previa ama abruptio placenta ay jirto waa risky fetal demise waxaan waa risk factors how to diagnosis of postpartum hemorrhage waxaan leenahay the diagnosis of postpartum hemorrhage waxaan leenahay history and examination history maxaa markay yani complaint waxay kula caawinaysaa waxay leedahay doctor after vaginal delivery waxay imaad leenahay minimal ama massive waxa waaye vaginal bleeding so history waxay kusinaysaa in hooyada dhiig bax ku dhacay yani do how to diagnose number 2 number 2 and number 3 number 2 waxaan leenahay waa history number 2 waxaan leenahay waa examination number 3 waxaan leenahay waa investigation ay hadii how to diagnose waa history examination and investigation history waxay ka caawinaysaa waxay ku leedahay wallahi guriga ku soo dhashay delivery at home ama delivery mataqaan at hospital and then waxa ku imaada leenahay vaginal bleeding historygaas ku siinaysaa ka soo markii historygaas examination ka number 2 waxaan ku bilaabaynaa inaan sameeyno general examination number 2 abdominal examination sama iyo number 3 ama C waxaan dhihi doonaa ayadana local examination oo BV inaan u sameeyno meesha inaan fiiriyo anay tiir inuu jiro sama general examination waxaa ka fiirinayna hooyada inay shock ta in kale sama yani corresponding the total amount of blood sama blood loss la fiiriyo marka waxaan leenahay waxaan fiirinayna generalka sama corresponding to the amount of blood loss to exclude blood loss waxaan fiirinaya erga maxaa ka wada hooyada waxaan fiirinayna inay shock ma tahay mise ma ah general examination general examination fiirinayna pulse rate ki blood pressure ki hooyada waxaan fiirinayna shock miya mise shock ma haday shock tahay u baahan tahay markaas in badbaadi oo resuscitation loo sameeyo oo dhiig lagu shubo iyo sama IV fluid loo bilaabo bil xogta marka waxaan first waxaan fiirinayna general examination ani bukaan kasta oo kula imaado bleeding ama surgery ha noqdo ama internal medicine ama opsi bukaan kasta oo kula imaado massive vaginal bleeding you must do general examination si aan u fiirino miya socota imtixaanka lagu weydiiyo wadada iyo examination ku general ku bilaabo ama surgery ha noqdo ama internal medicine ha noqdo ama ay qofka soo shoog waxa leedahay I will to look general examination sa u fiirino mataqaana qofkan shoog ma yamsa ma inta ka fiirinaysa pulse rate-keeda blood pressure-keeda peripheral blood call soo peripheral mataqaana limbiska gacmihi lagu in call in sweetin waxa ka fiirin xabi shoog number 2 waxa u gudbina abdominal examination maxaa u fiirin abdominal examination maxaa ka fiirinaa waxaan fiirinaa funduska sama funduska maxaan ka fiirinaa yani ma well contracted mase not contracted doo fundus marka gacanta saaro haduu yahay uterine atony postpartum hemorrhage waxaan leenahay uterine wuxuu noqonaa relax sidoo kale waxaan leenahay yani wuuna ka badan yahay inta laga filayo sama yani waxaan expected ku ka badan waa soft not hard yani marka taabato kor oo jooga wili youth funduski kor oo saaran above the umbilical sama waxaan leenahay this is one soft waa jilcay marka taabato laakiin haday traumatic tahay waxaan uterine wuxuu noqonaa contract wuuna soo gaabana hoos imaana waa this is waxaan leenahay waa imaana uterine atony waxaan waa weyn waa soft laakiin kan waxaa la socdo yani abdominal examination waxaan ka fiirinaynaa this is ma uterine contraction miya ma aha hadduu uterine contracted yahay means waxaan leenahay uterine atony ma jirto waxaan raadinaa sababi kala raadinaynaa oo inay trauma jirto iyo inuu coagulation problem jiro ila socdo doctor laakiin etiology koowaad uu means waxaan iska hubinaynaa uteruski relax miya ma aha hadduu relax yahay doctor maxaa sameynaysaa hadduu relax yahay means waxaan leenahay waxaan gaaraa diagnosis aynu hooyadan sababta keentay inuu postpartum hemorrhage waxaa leedahay uterine waa relax waa soft marka caloosha gacanta saarto arki doonta insha Allah marka salka tagto bukaan gacanta saaraysa abdominal examination abdominal hatta abna uterus kan raadina uterus hadduu well contracted yahay means maxaa waaye waa hard waa adag yahay laakiin hadduu soft yahay
oona large korona jiraa weli waana jilcan yahay dis waxaa leenahay waa uterine otomy waxay u baahnaan in la sii daawooyinkii sameynayo uterine contractionkii bas doctor marka waxaa leenahay code abdominal general examination si guud igu fiir inuu shock tahay in kale abdominal examination waxaa leedahay waa sharaxi waxaa leedahay abdominal examination waxaa rabaa inaan fiiriyo uteruska ma contracted ama not contracted kan u dambeeyo ama aan dhahan saddexaad waxaa leenahay waa vaginal examination yani waxaa leenahay kow general examination abdominal examination and kan saddexaad waxaa leenahay waa vaginal examination maxaan ka fiirinaa vaginal examination waxaan ka fiirinaa lower genital tract genital tract maxaan ka fiirinaa ani trauma yani dhaawac ma jiraa ani trauma soo ma hadduu traumatic yahay postmortem hemorrhage mostly waxaan arkaynaa laceration ayaan helaynaa soo ma sidoo kale dhiiggan wuxuu noqonaa bright yani sima dhiig waxaan leenahay waa bright hadduu yahay uterine atony inaan waxaan leenahay mostly dhiig wuxuu noqonaa dark soo ma dhiig waxaan arkaynaa oo dark ah markaan fiirsano wax trauma no laceration no injury ma jiraan dhiigan waxaa leenahay waa dark this waxaa leenahay mostly waa uterine atony already koraan soo arko uterus wuxuu relax and soft mila socota doctor maxaa leenahay this waxaa leenahay waa saas u sheeg waxaa general examination soo hubin in sonada ay shock in kale abdominal examination u fiirino sababta ma uteruska muxuu yahay ma contracted ama contracted ma hadduu contracted yahay means maxaa leenahay doctor waxaa leedahay if uterus contracted waxaa leenahay this is uterine atony ma jirto hadduu relax yahay and soft waxaa leenahay this is uterine atony soo gudub waxaa maana vaginal examination waxaa ka fiirinaa ani trauma ani injury ma jiro kalarka dhiiga fiiri hadduu dark yahay mostly waxaa leenahay waa uterine atony hadduu bright yahay waxaa leenahay mostly waxaa leenahay trauma ayaa jirto examination afraad waxaa leenahay yani waxaan fiirinaynaa examination of placenta soo ma yani nukow labo saddex afar examination general examination abdominal examination local ama vaginal examination saddex waxaa leenahay placenta waayo placenta u fiirina maxaa yeelay 40 soo ma mid kamid ah examination sameynaa doctor biska sameynaa arag ani examination sameynaa waxaan raadinaa sababtay postpartum hemorrhage abdominal waxaan kasoo raadinaa uterus ma contracted ama relax soo oo hubin inuu uterine atony jirto in kale examination waxaan sameynaa ani trauma and injury kan afraad waxaa leenahay waxaan fiirinaa examination of placenta ma soo baxday ma soo bixin haddii soo baxday waxaa leenahay ama qayb kamid loogu soo tagay ayaan sameynaa marka waxaan exploration of the uterus inaan fiirino haddii aan uteruskii uu ku jiro mataqaana retained mataqaana fragments haddii ugu jirto placenta ka soo bixinayna aan sidoo kale waxaan leenahay examination ugu dambeeya oo ah examination waxaan leenahay oo shanaad waxaan leenahay waxaan sameynaa assess of the coagulation inaan fiirino mataqaana u fiirino inuu jiro ani coagulation problem iyo in kale this waxaan leenahay how to diagnose waxaan history and examination and investigation this waa placenta you must know how to make examination of placenta examination oo sameynayna waxaan weynaynaa complete inay soo baxday in kale placentada diagnosis gudna waxaan soo gaarnay ayadana investigation sama diagnosis waxaan dhahnay 1 iyo 2 iyo 3 1 2 3 1 waxaan dhahnay history lagu gaaro diagnosis 3 examinationki examination waxaan kala qaybinaa asana 5 sama iyo kan saddexaad waxaan leenahay waa investigation waxaan fiirinaa full blood count waxaan fiirinaa dhiiggeeda fiirinaa mataqaan inay hemoglobinkeeda fiirinayna cross-matching aan sameynayna si aan ugu diyaarin afar ama 6 unit u diyaarinaysa of dhiig ah coagulation profile-keeda fiirinayna maxaa yeelay coagulation profile-keeda waxaan leeyahay examination ugu jirtaba soo assessment waxaan ku sameynaa coagulation profile haddii coagulation problem uu jiro means maxaa leenahay sababta waxaan leenahay coagulation problem waa jirta leenahay oo sababta inuu dhiigga istaagi waayo afartii Soomaaliya afartii mid kamid ah waxay dhahnay inuu coagulation problem jiro sidoo kale waxaan fiirinaa urea and electrolyte waan urea oo fiirinaysa maxaa yeelay postpartum waxay keeni kartaa wax loo yaqaan renal failure maadaama ay keenayso waxaa leenahay naga fiiri urea and creatinine naga fiiri ama electrolytes liver function test aysan fiiri maxaa yeelay waxaa ka jira wax loo yaqaan HELLP syndrome waxaa laga yaabaa inay qabto mataqaana oo jira severe preeclampsia HELLP syndrome inuu jiro ay sababto mataqaana yani coagulation problem transabdominal and transvaginal ultrasound oo sameeyna abdominal ultrasound oo sameeyna soo fiirino mataqaana inuu jiro ani mataqaana retained product of consumption inuu ku soo hareen meeshii in kale ultrasound oo sameeyna waa saarna ultrasoundka waxay loo xarnaa oo ana leedahay maadaama 40 mid kamid ay ahayd retained tissue waxaan raadinaa retained tissue wax ma ku soo haray wax ani tissue ma gudaha ku jiro balaastima ku hartay meel socdo marka waxaan this waa how to diagnose management waxaan leenahay number 2 waxa u muhiimsan how to prevention maanta waxaan ka hadlaynaa prevention birina waxaan dhameystiri doonaa inta kale number 2 waxaan leenahay how to prevention yani management u muhiimsan waxaan leenahay how to prevention waxaan leenahay in risk factors ka ogaato yani risk factors ki hooyada mataqaana multiple pregnancy waa over gestation sama risk waa yani hooyada waxaan u isticmaalo kale forceps iyo fintosan kusoo bixiyay hooyada hore wuxuu qabtay postpartum hemorrhage hore u qabtay sama hooyada mataqaana ila waxyaaba risk factors kale maxaan sameeyaan leenahay haddii joogaan waxaan leenahay antenatally sama haddii hooyada antenatally ay qabtay waxaas ama intrapartum ay ku jirto in laga warqabo hooyadan ani waxyaabaha aan u sameynayo ama ha noqoto in laborkii ama hooyada antenatal intii isla 9 bil urka soo lahayd haday jirto ani sabab keeni karto postpartum hemorrhage in laga warqabo mesela appropriate plasty ahayd plasty briefy ahayd cunuga IUD ahaa hooyada waa preeclampsia qabtay ila socota waxa waa risky marka waxaan leenahay to be aware
riskiga dhan waxaa leenahay la soco kadib waxaan leenahay detection and correction haddii ani anemia jirto kale waa saxaysaa ani coagulation problem jirto waxna waa inaad saxdaa mid saxdo tusaale kadib waxaa leedahay waxaa samaysa active management of third stage ani hooyo risk ugu jira badan waxaa leenahay third stage active management loo sameeyaa in cunug marka hooyo soo baxdo kadib cunug soo baxo fetus soo baxo second stage in hore lagu sameeyo active management si balaastada lagu soo bixiyo active management sidoo kale inuu hooyada u sheegay staal ku dhasho ay hooyo risk ku jirta riskiida aan soo sheegay dhan leh waxaa leenahay you must delivery at home sorry at hospital ku dhasho crossmatic dhiig loo diyaariyaa ani hooyo مثلا hooyo risk ugu jirto kale twinsiga polyhydramniouski previous postpartum hemorrhage preeclampsia hore u qabtay min saxta IUFD waxna in loo diyaariyaa postpartum in loo diyaariyaa dhiig sidoo kale avoid prolonged labor in laga fogaado prolonged labor in la soo gaabiyo la isticmaalo bartograph ama bartogram la isticmaalo si loo soo gaabiyo aan loo ogolaan avoid the prolonged labor avoid any laceration sidoo kale yani waxaa leenahay ayadan avoid waxaa leenahay laceration sama يعني waxaan avoid ka fogo waxaan leenahay inuusan any laceration haduu dhacana waxaan leenahay isla markii ma taqaana halo repair lagu sameeyo routine examination loo sameeyo balasta kasto in marka soo baxdo la hubiyo routine examination balasta soo qabo examination ku sameeyo hubi inay complete soo baxday in kale balasta iyo membrane kana hubi in kulligood soo bixin in kale this waxaan leenahay waa routinely haway ka soo risku jirto in staalka ku dhasho in loo diyaariyo cosmetic loo diyaariyo in laga fogaado avoid prolonged labor ki in si routine lagu sameeyo examination of the placenta and so on yes doctor isma waxaan leenahay waa risk factors in meesha lagu ogaado sidoo kale waxaan leenahay any woman of vaginal delivery waxaan leenahay in la siiyaa oxytocin sama oxytocin waa in la siiyaa 5 to 10 unit IM laga siiya ama IV loo sameeyo sama oxytocin la siiyo oxytocin prophylactic loo sameeyo 10 unit in la siiyo mostly 10 unit 5 ka badan wax badan xamataris badan 10 iyo 20 in la gaarsiyo xad riskiga si ugu jirto in loo siiyo IM ama IV loo siiyo sama prophylactic oxytocin ka waxay yareynaysaa 60% inay saniciyo ay hooyo salka soo aragto hooyo markuu cunug soo baxay kadib waxaa leenahay hala siiyo oxytocin syntocinon oxytocin sama waa loo siinaa waxaa la reenaa waxay yareynaysaa 60% riski of inuu saniciyo postpartum hemorrhage sidoo kale ayni postpartum kasta waxaa leenahay exploration ugu sameeyo birth canalka dhan fiiri exploration ku sameeyo hubi yani ani study after gormal laakiin master haddii ay mataqaan instrumental vaginal delivery ay ku dhashay ama oo ah breastfeed labor waxaa la rapid labor isku mid breastfeed labor waxaa leenahay careful examination ku sameey exploration ku sameey cervix ki soo yahay vagina soo yahay uterus ka dhan examination iska sameey careful observation of the fourth stage of labor fourth stage waxaa leenahay ayadana uu sameey observation of fourth stage of the labor fourth stage waxaa sameeyay si careful observation uu sameey يعني waxaa leenahay marka hore kadib istaalka marka bixiso waxaa leenahay 2 hour marka salka way ka soo dhashay istaalka waxaa leeyahay 2 hour jooga ama 4 hour jooga waay waxa loo yaqaan waa 4 stage sama stage ka afraad stage waxa loo qaybinaa 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 4 maxaa waay hooyada marka dhashay kadib baasi soo baxay kadib waxa lahaa waa observation stage ka observation waa sama stage 1 waxaan ku sheegnay ahaa stage of ka soo bilaabay true labor ben ilaa ay noqonayso fully dilated second stage ka xanano stage ku cunug soo baxay stage 3 waxaan xanano stage ku bilaasada ay soo baxayso stage 4 ka waa mid observation 2 hour 4 hour waxaan istaalka noo joog meeshaas ku waardiyeysanaynaa xaadan la socona marka 4 hour kadib ay fiican tahay waxba aysan jirin dhiig oo sbix jirin ayaan leenahay go home guriga naga aad khayr la ku siiyo wabillahi tawfiiq inta ku soo goynaa bir ay dhameysanaynaa management-iga noo dhiman inta kale